maxaa lagu xaliyay gabadhii aan maamuli karin maskaxdeeda. soo dhawow inta aynan u guda galin mowduuca aynu ka hadlayno fadlan subscribe sar channelkeena dunida maanta waad mahadsantahay. Susanna Ahlan waa gabar 24 jir ah oo ku noolayd magaalada New York ee dalka Mareykanka. gabadhan waxaa ku dhacay cudur la yaab leh oo aan horey loo arag. iyada oo faraxsan oo aan wax dhib ah qabin ayay ilbiriqsi isku bedelaysaa. waxayna bilaabaysaa oohin, murugo iyo in ay dhaqaatiirta la dagaalanto. haddana daqiiqad kadib xaaladeedii caadiga ahayd ayay ku soo laabanaysaa. waxaa loo geeyay dhaqaatiirta maskaxda, kuwa ku takhasusay neerfayaasha, dhaqaatiirta cilmu nafsiga. dhammaantoodna waxay ku fashilmeen in ay sheegaan cudurka haya gabadhan. ugu dambeyn dhakhtar u dhashay dalka Suuriya oo lagu magacaabo Suhayl Najar ayaa loo geeyay. wuxuu u dhiibay qalin iyo warqad wuxuuna ka dalbaday in ay saacad sawirto. markii ay dhamaysay ayaa la arkay in ay ku qortay dhammaan lambaradii saacadda hal dhinac oo kaliya. halkaas wuxuu ku ogaaday in gabadhan cudurka haya uusan ahayn cudur nafsi ah, balse uu hayo xanuun xagga maskaxda ah. baaris kadib wuxuu dhakhtarku ogaaday in gabadhan maskaxdeeda dhankeeda midig xanuun iyo caabuq uu ka jiro. waxay noqotay in qalliin xagga maskaxda ah lagu sameeyo si maskaxda inta jiran loo salgooyo gabadhan loo xalliyo. Dr. Najar oo ka qalin jabiyay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Damashq waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ugu horeysay ee ku guuleystay qalliimo ay ku sameeyaan maskaxda bini'aadamka. sanadkii 2018 waxaa soo baxay filim laga sameeyay sheekada gabadha. filimkaas oo lagu magacaabo Brain on Fire. caafimaadku waa nimco Ilaahayna siiyay ee ku mahadi Allah. waad ku mahadsantahay daawashada iyo dhageysiga mowduucan. fadlan saaxiibada la sii wadaag.